gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal oo ku howlan kor u qaadida tayada waxbarasho ee ardayda dugsiyada gobolka Awdal iyo waliba isdhexgalka ardaydaasi sidii loo xoojin lahaa ayaa degmada Dila ee ka tirsan gobolka Awdal waxa uu si rasmi ah uga daafuray koobka dugsiyada sare ee gobolka Awdal. koobkani ayaa waxa ka qayb qaadan doona 8 secondary dugsiyo oo ka tirsan dugsiyada sare ee gobolka Awdal kuwaas oo 4 ka mid ay yihiin dugsiyada dawladda halka 4 kalena ay yihiin dugsiyada private-ka madashii hadaba koobkani lagu furayay oo ka qabsoontay degmada Dila ee gobolka Awdal ayaa hadaba ciyaarta furitaanka oo dhex mareysay dugsiga sare ee Sheekh Umar Good ee magaalada Dila iyo dugsiga sare ee Waaberi Secondary School ee magaalada Boorama ayaa ugu horeyntiiba waxa ciyaarta jiijkii hore ay ku dhamaatay 2 gool iyo eber oo guusha ku hogaaminayeen ardayda dugsiga sare ee Sheekh Umar Good ee magaalada Dila. qaybtii labaad ee ciyaarta markii la isku soo laabtay ayaa iyaguna waxa hal gool la yimiday ardayda dugsiga sare ee Waaberi sidaasina ciyaarta ayaa waxay ku soo gabagabowday ay guusha ku raacday ardayda dugsiga sare ee Sheekh Umar Good ee magaalada Dila. hadaba mudashii furitaanka ayaa halkaas waxa ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Dila maayirka magaalada Dila iyo mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee magaalada Dila Fuad Abdisamed Sheekh Ahmed Seed madaxa arrimaha ardayda wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal waxaanay halkaas ka sheegeen Fuad Ahmed Celiya gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Awdal sarjeeke iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay maxaayaday xafladan iyo martiqaadkan maanta anigu martii loo yahay marka koowaad waxaan leenahay aad iyo aad baan uga mahad celinaa cidii soo qabanqaabisay ee soo diyaarisay ee barnaamijkan iyo kulanka dugsiyada sare ee kubadda cagta. waxaa si rasmi ah u bilaabmay kaabka dugsiyada sare ee gobolka Awdal maanta waxaa halkan ku wada ciyaaraya dugsiga sare ee Waaberi oo aan ugu ka socdo iyo dugsiga martida loo yahay ee Sheekh Umar Good. inta kadib waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa guddoonka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal Cheeke iyo guddoonka arrimaha ardayda ee wasaaradda waxbarashada ee Mr. Seed oo dhammaantood ka soo shaqeeyay kaabkan sida quruxda badan maanta bilowday. insha Allah waxaan rajaynaynaa haddii ay yiraahdo inuu kaabkan noqdo isdhexgalka dhalinyarada oo meesha ka saaro kala fogaanshihii dhalinta gobolka ku wada nool. sidoo kale insha Allah waxaan rajaynaynaa kaabkan inuu noqdo mid gobolka Awdal u horseeda guul iyo gobonimo insha Allah. xagaan waxaan rajaynaynaa insha Allah inay wasaaraddu ka soo xuli doonto dhalin ciyaari doonta dugsiyada gobolka Awdal. anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada degmada Dila waxa sharaf noo ah inaan maanta marti gelino koobkaasi oo ah mid ay isku dhexgalayso dhalinyarada dugsiyada gobolka Awdal. koobkan ka horeeyay waxa lagu qortay degmada Qunijeed maantana Dila lagu qabtay. annaga haddaan nahay reer Dilaad waxaanu ilaalin doonaa isdhexgalka dhalinyarada waxaanu soo dhaweyn doonaa dugsiyada dhammaantood waxaanu dhiiri gelin doonaa oo dugsiyadooda ugu tagi doonaa ardayda noo yimiday. waxaan aad uga mahad celinayaa wasaaradda horumarinta waxbarashada iyo tacliinta sare ee suurta gelisay isdhexgalka dhalinyarta. anigoo ka hadlaya afka deegaanka odayaasha degmada Dilaad waxaan halkan ka soo dhaweynaynaa martida kooway ka tahay dugsiga Waaberi iyo madaxdiisa oo maanta u martay dugsiga sare Sheekh Umar Good. mahad baan u celinaynaa waxaan mar labaad mahad u celinaynaa wasaaradda waxbarashada oo isku duwaan gobolku suuro geliyay qabsoomista ciyaaraha ayaan aad ugu mahad celinaynaa. waxaan leenahay waxa maanta bilaabmay isdhexgalka dhalinyarada gobolada iyo degmooyinka halkan oo 8 dugsi lagu qabsan doono taasoo ay isbaran doonaan walaaltinimada saaxiibtinimada si loogu gudbo qabaa'ilka iyo kooxaysiga iyo jirka carruurta daroogooyinka laga saaro. waxaan uga mahad celinaynaa isku duwa waxbarashada suuro geliyay inay ku qabsoonto degmada Dila. waxaa garoonka Dila ee stadium ka bilaabmay tartankii dugsiyada sare ee gobolka Awdal taasoo tartankiisina bisheedii aanu ku qabanay degmada Quljeed oo ka soo qayb galeen 4 kooxood. tan maanta waanu ballaarinay oo waxaanu gaarsiinay 8 iskuul oo isugu jira 4 iskuul oo private iyo 4 iskuul oo dawladda. waxaan ugu talagalnay si iskuulada isku dhaxgalaan jadwalkii waxaan u sameeynay inay iskuuladii private iyo public ay mid walba mid private iyo mid public isla galaan jadwalkii. maanta waxa wada ciyaarayo oo axada dugsiga Dila oo marti loo yahay iyo dugsiga Waaberi oo ciyaarta socota qaaliga berri oo siniina oo ay bishu tahay 16 waxa ciyaari doono dugsiga Turkiga iyo dugsiga Ardaale 19 bisha oo wiiga dambe ah waxa ciyaari doono dugsiyada Umar bin Khattab iyo Aadan Isaaq. waxa soo gabagabaysan doona wareegii hore ah 26 bisha
12aad dugsiga sare Al-Aqsa iyo dugsiga Sheekh Cali intaasi waxay noqon doontaa 8 kooxood 4 baa hari doona 4na way soo bixi doonaan jadwalka cusub waxaan sameyn doonaa isku aadka groupka A ee maanta ciyaaraya iyo groupka B oo ay labada kooxood bariya ayaa waxaan sameyn doonaa inay golada ayadoo wankeedu ay biida oo tooy ku dhici doonaan sidii sharciga internationalka sportigu sheegay qolada biidana kuwooga wanko tooga in eeda ayaan u qorsheynay oo quarter finalkiina waa noo soo qoran yahay marka waxaan leeyahay wasaaradda waxbarashada heer qaran iyo wasaaradda waxbarashada gobolka iyagoo ka duulaya dhalinyarada isdhexgalkeeda iyo waxa waliba tartankan aan ugu talagalnay inay dhalinyaradaasi ay jaahisado fiican helaan kabacdina aanu ku dhiiri gelino inay ka soo bixi karaan kuwa gobolka matala gobolka Awdal kuwa matala iyo kooxaha Serie A runtii aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha waxbarashada iyo sayniska wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal Professor Jeeka Ismaan Ciye oo runtii suuro geliyay in kulankan lagu qabto degmada Dila oo runtii teeramkan hore uu ugu talagalay 8 iskuul oo dugsiyada sare ah oo 4na private yihiin 4na public yihiin lagu qabto Dila teeramka dambena 8 kale hadii la yiraahdo lagu qabtay halkan runtii aad baan uga mahad celinaynaa maadaama degmooyinkii gobolka ay badan yihiin runtii uuna noo keenay halkan waxyaabo badanna runtii aan ugu mahadnaqayno halkan degmada waxbarashada runtii si fiican noola shaqeeyo oo gobolka degmo kasta runtii uu ka warhayo waxaan runtii uga dan leenahay ciyaarahan inay runtii ardayduna isdhex galaan oo isbartaan muxuu ahaa jir ahaan iyo maskax ahaanna ay u dhismaan ilaahay uga mahad celinaa isku duwaha gobolka Awdal iyo qaybtan waxbarashada iyo sayniska oo halkan ka bilaabay ciyaartii gobolka Awdal waxaan ugu mahadnaqnaa anaguna waan u soo dhaweynaynaa waxaan u diyaarnahay inaan dhalinyarta isdhex gelino way ku mahadsan yihiin wayna socon doontaa wixii tamartaydana waan kala shaqayn doonaa ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jeeka Ismaan Ciye si faahfaahsan uga warramay ahmiyadda koobkan uu leeyahay dhalinyarada waqti xaadirkan ku jirta dugsiyada sare ee gobolka Awdal waxaanu maanta halkan isugu nimidnay inaanu furno kulankii ama tartan ciyaareedkii aan ugu talagalnay dugsiyada sare oo ah 8 dugsi sare oo isugu jira magaalada Boorama degmada Boorama iyo degmada Dila oo ujeedadu ay tahay sidii ay ardaydu isku dhaxgal lahaayeen kow talaado waxa saddex ujeedo man meeshan ka lahayn ujeedada kooxda qorsheeyay wasaaradda waxbarashadu ayaa wuxuu ahaa in 3 biloodkan ay ugu dambayso bishan December ay kamid ah tartan ciyaareed inaanu qabanno tartan ciyaareedkaas waxaan ugu talagalnay inaan dugsiyada sare u qabanno oo 8 dugsi ah ujeedadan kale naayta kow inay isdhex galaan laba inaan ardayga maskaxaan baan ka dhisnaa inaan jirkana ka dhisno oo yadna ay taasina tahay saddexaadna waxaan uga dan lahayn degmada Dila waxaan u keenay sidii tartankii kan ka horeeyay baan kuljeed u geynay inay ardayda u noqoto waxyaabaha ay xasuusan karaan oo dalxiis ahaan ah waxa laga yaabaa arday badan inay degmada Dila ayna soo arag maanta waxay u tahay chance ay aad ku xasuusan doonaan ayna dadna ka baran karaan ardaydoodii dhiganeysay dugsiga sare Sheekh Umar Good ee Dila inuu dugsiga maanta ciyaarey waa bari ay halka ku leeyahay maanta saaxiib fara badan taana ujeedaan kala imaad insha Allah waxaan aad uga mahad celinayaa dhamaan cid kastoo ka qayb qaadatay hawshan nagala qayb qaato kamid yahay maayirka degmada Dila inay gudoomiyaha waxbarashada degmada Dila iyo madaxa arimaha dhalinyarada muxuu ahaayay ardayda ee xagga sportska iyo xagga markaasi kadisyadaba oo seed wana laantu suurta gasheen insha Allah waxaan rajaynaynaa ka wasaaradahan inaan waxaan ballan qaadayaa heeramka dambe in degmada Boon aanu ku qaban doono tartanka kan xiga kii hore quljeed buu ahaa kana Dila noogu talagalnay laakiin waxay Dila noogu talagalnay waqtiga kooban oo aanu ka faa'iideynayna darteed yaa Dila waa meesha ugu dhow kala waxaan ugu talagalnay in degmada Boon oo insha Allah kooxda qaada koobkan aan leenahay balse alla soo ciyaaraan Boon laakiin waxaan si ballan qaaday in koobka dambe lagu qaban doono degmada Boon
waxa imikaad arkaysaa koobab badan oo isdaba socday xataa waxa jirta koobkii dhalinyarada wasaaradda waxbarashada ee macallimiinta wasaaradda waxbarashada macallimiintii ay qaadeen kii dhaweytay kurjeeda qaadeen baa jira waxa kana waa mid kamid ah waxyaabihii tartanada marka waxaan odhan lahaa in reer dila dhammaan ardayda dugsiyada sare waxaan odhan lahaa waa mid aan ugu talagalnay inay ardayda dugsiyada sare gobolka Awdal in xagga aqoontana ka dhisno xagga sportsna inay ka dhisno insha Allah degmooyinka kala hadhayna dhammaantood ku wada qaban doonaa waxaan aad iyo kan uga mahad celinayaa dhalinyaro qurbo joog ah dhacdo Baymia Ball oo kubadaha ugu badan iyo agab wixii naga soo gaadhay ay tahay maanta inaan ugu qabanno iskuulada kale tuulo in degmooyinka kale ku yaalana aanu gaarsiinayno inay kubadahaasi si ay ugu ciyaar lahayn taasina ay fursad nasiisay inaan koobkan qaban karno insha Allah waxaan rajeynayaa reer dila waa degmo xadaariya oo degmadii marka gobolka la soo galay lagu soo horeeyay inay si wanaagsan u marti galiyaan dhammaan maamulayaasha dugsiyada sare ee koobkan ka qayb qaadanaya waxaan leeyahay si halay naga arko inay wax aqoonteenu hay naga muuqato si wanaagsan inoogu dhamaado si wanaagsan inoogu bilaabmo si wanaagsan inoogu dhamaadaan rajeynaya marka aanu ka wada qayb qaadano waxaan ugu talagalnay waa ardayda dugsiyada sare ku jirto oo kaliya uguma talagelin in arday kale marka lagu soo daro taana xeerarka ka yaalan insha Allah inaan ku qaadi doonaa waana mid muhiim ah marka waxaan leeyahay dila marti loo yahay maayr waana wax badan nala qabataan inta muddada ay socoto ee sideedda dugsi ay ciyaarayaan inaad hawl badan ka qabataan bal liga baahan yahay aan afkii wasaaradda waxbarashada ku hadlaya qorshahan maanta socdaay wuxuu kamid ahaa qorshayaashii 3 biloodkii Burcaan ku dajinay oo uga mahad celinay wasiirka hore wasaaradda waxbarashada inaan wali sii wadno waxa kale aad u soo dhaweynay wasiirka cusub oo qorshayaashii yaalay inaanu ka mid dhalan ka wasaaraddan adan waxbarashada nahay wixii aanu qorsheysanayna 100% saynu u fulin lahayn aan ugu talagalnay waliba lafdhabar ay tahay tayada waxbarashadu tanna ay kamid tahay sidii ardayda wax badan ay ku mashquul lahaayeen oo xagga mukhaadarada haday tahay waxyaabo isdhexgalka ardayda muxuu dhalinyarada inaan xoojino hadan wasaaradda waxbarashada nahay oo xuduudda ugu badan ee dhalinyar gacanta ku haysa waxaanu rabnaa jaamacadaha dugsiyada sare dugsiyada dhexe ay isku dhexgali lahaayeen ay aqoon iyo isdhexgal wanaagsan aan uga bixi lahayn waxaan bulshada ku mashquulshay xagga qabyaaladda insha Allah waxaan rajeynayaa arday wanaagsan ciyaar wanaagsan inay noogu soo dhamaanayso wanay noo furan tahay ciyaartii sanad dugsiyeedka ugu dambeysay ee tartanka ciyaaraha dugsiyada sare 8 dugsi intaasan ku soo kooblaa